wax la hubo oo la og yahay laakiin aan lagu talagelaynin cid u diyaar garoobi aynan jirin geeri un baa jirta. waxaa maanta magaalada Melbourne ee dalka Australia aas jaaliyadeed loogu sameeyey Maxamuud Mukhtaar oo ahaa wiil 30 jir ah oo toddobaadkii hore si arxandara ah loogu dilay bartamaha magaalada Melbourne xilli uu soo dhameeyey shaqadiisa muruqmaalka ahayd. boqolaal ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Melbourne ayaa maanta aaskan ka soo qayb gashay. salaadii janaasada oo lagu soo dukaday masjidka Preston ayaa kadib loo soo gelbiyey hoygiisii dhabta ahaa oo qof walba ifkan ku nool uu sugayo. waxa ugu horeeya ee ruuxa la weydiin doona maalinta qiyaamada awal ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamati salah. waxa ugu horeeya salaada la isweydiinay waa taa hurdada ha ka soo kiciso adduunyada walbahaarkeedu isan ka soo kicinin wax kale yuusan siyaasadda iyo fadhi ku durku yuusan ka soo kicinin waxa hurdada ka soo kiciya han noqdo godka yar ee madow la isku rogay allahina waafajiyo qabriga allah u waasiciyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo nabigiisa maxamed aha ee khayru khalqillah kuwa la soo xashrinaya allah ku daro. aabaha dhalay oo aad u qanacsan ayaa ii waramay. maanta wiilkaaga waa la aasay Soomaali badan waa ka soo qayb gashay bal dareenkaaga ka wada. dareenkaygu aad buu fiicay wallahi macnaheedu ani keligeyga ma dhiman Soomaali dhan buu ka dhintay u jeedaa marka dadkii oo dhan waad u jeedaa aniga keligey maaha hadda garabay siiyeen gaashaan ani moralkayga aad buu dhisay ani aad buu maasayay gaayuu farsalna oo mahad celinayaa macnaheedu qacam weyn buu sawira ka qaatay arrinta adduunka oo dhan maanta meel kasta laga soo wacay asaga gaarsiiyey marka waa ku maasayay marka dhibaatooyinkaas dhacaan oo dhan inuu isaguna qayb naga qaato aad baan ugu mahadinayaa isaga. wejiyadan aad arkaysaan ayaa ka muuqata murugo iyo tiiraanyo iyagoo og geeridu inay xaq tahay laakiin ay saluugsan yihiin sida arxandarada ah ee loo dilay Maxamuud Mukhtaar. waxaana la aasay isagoo aan weli la helin ciddii dishay oo la sheegay in baadigoob loogu jiro. waxay noo sheegeen inay arrintaasi aysan ka fariisanayn ka nasanayn ilaa ay meel saaraan ay noo sheegeen jaaliyadda cusubtay runtii in meydka la siiyo maadaama dad islaam aan nahay in meydkana la siiyo aan aasano saasay ku timid laakiin iyagu waxay noo sheegeen inay baaristu ay socoto baaristaas marka ay dhammaatana inay jaaliyadda iyo qoyska uu ka geeriyooday Maxamuud ay la wadaagi doonaan. wallahi dee waa markii ugu horeysay hotel Australia maada aasna ka qayb galo ilaahay uu naxariisto wuxuu ka dhintay heelidii qaraabadii ku tagayna Soomaaliya walaha ka siiyo kulli gacan ka xaqdaran baa dishay sidaynu ognahay marka wixii si rag baa la tagay insha Allah taala ilaahay janno ka dhigi. dadka saaxiibadiisa ah ee shaqadu ay wadaagaan oo goobta yimid oo ay ku jireen madaxda shirkadda tagaasida uu shaqayn jiray ayaa ii waramay. We are very, very sad at Silvertop Taxis to lose one of our brothers. He has been always known as a fun-filled man. We know his father well. They've been with our company for quite some time. And we, management and staff at Silvertop, pass our serious and sincere condolences to the family. And our support will be with the family no matter how long it takes for them to get over this tragedy. Maxamuud Mukhtaar Allah uu naxariistay marna qalbigiisa kuma jirin in lagu dili karo dal shisheeye oo nabadi ay ka jirto. geerida Maxamuud Mukhtaar dareen intee laga bay ku gelisay. dareen aad iyo aad u weyn in adeer ninkaas aad baan u aqaanay taxi driver baa isla wada ahayn markii ugu dambeysay sabtidii baan waxaan isla joognay Melbourne airport gaariga isku xigaan ahayn marka aad iyo aad bay ii feel garanaysaa geeridiisa. Maxamuud Mukhtaar wuxuu iska ahaa nin dhalinyaro oo xamaasho wax kale oo dambi oo lagu dilayna ma jiro oo aan ahayn dareeskan aan qabno oo lagu tuhmahay inuu misal lacag iyo wax kharash u wato san filayno. runtii dareenka aan qabaa maanta amba ay walaalahay qabaan aad buu u bedelan yahay waayo waa nin walaalkeena oo dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto waxaana leeyahay bulshada kuwaana qaadato oo aakhiraha loo diyaar garoobo. tagaasida noocan oo kale ee lagu magacaabo Silvertop ayuu Maxamuud ka mid ahaa wadayaashooda waxaana inta badan Soomaalida ku nool magaalada Melbourne ay ka mid yihiin darawalada ka shaqeysta tagaasidan laakiin nasiib darro Maxamuud waxaa la dilay isagoo shaqo soo dhameeyay isla markaana dhigay meel aan sidaas uga fogeyn gurigiisa. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.